inuu go'aansado inuu gurigani iibiyo. Hase ahaatee akhbaarta gurigan waa la hayaa. Cid ku dhiiranaysa oo gurigaasi iibsanaysa amaba se gadanaysa waa waayay ninkii. Qof waliba uu iibka gurigani u soo bandhigo waxa uu yiraahdaa mayay allahay ka allah gurigan xaalkiisa waan ogahay. Okay tigawana maanta casaan baan ku soo beeray midowgii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. wiilkiini waa uu soo laabtay waa uu soo rogal celiyay waxaanu doonayaa doorkan inuu meesha ka saaro xoogayga yara inta ah ee u jeedisaan ee ah muuqaalada waada soo daahdaa maxaan kugu dhacaniyo hoon geel miyad caanaha ka listaa waxay muuqaalada maxay soo raagaan okay haddeed waan soo jeestay idinkuna diyaar ma tihiin waayahay imika iyo haatan ahaynu gudagal muuqaalkeena maanta wixii channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir okay isku soo noqod wanaagsan soo dhawaada daawadayaal mar kale ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu barnaamijkeena ku soo qadan doonaa qiso runtii xooga yara nooc kale wax walba dib baad ka ogaan doontaan waa tahay qadiyadani aynu maanta muuqaalkeena ku soo qaadanayno ayaa waxay dhacday taariikhdu markay ahayd 14 bishii February sanadkii 1994 miilaadiga waxaana ku bilaabmatay sida tan maalin maalmaha kamid ah ciidamada gurmadka degdega ah ee dalka Mareykanka waxa uu soo dhacay taleefankii markay qabteen hallo ay dhaheen wax sanqad amba jawaab ah waa ay ka waayeen dhowr jeer bay ku celceliyeen hallo cid u jawaabaysa waa ay waayeen ciidamadani uu taleefankan u soo dhacay waa ciidamada gurmadka degdega ah ee gobolka Texas sida caadada ahna bileyskan marka la soo garaaco cidda soo garaacayna hadli weydo waxa kaliya ay sameeyaan ayaa waxay tahay inay ka aamusaan haddaba qofkani soo garaacay amaba se soo wacay numberka bileyska waa uu hadli waayay taleefankiina maanu dhigin taasi oo bileyskii ku abuurtay shaki ah qofkani armo ku sugan yahay khatar armo ku sugan yahay halis wax isweydiiyeen tusaale ahaan waxa dhici karta qofkani inuu halis ku sugan yahay weerar lagu hayo asna uu dhuumanayo oo ka cabsanaya inuu hadlo marka waxay go'aansadeen in qofkani soo wacay aan taleefanka ku dhigin ay sidaasi u dhigaan taleefanka isla mar ahaantaana ay baaritaan sameeyaan si ay u beegsadaan meesha uu taleefankaasi ka imanayo iyo cidda soo wacday si ayadoon u dareemin haddii uu yahay tuug amaba se uu dilaa yahay amaba se wax kale yahay aanu u dareemin bileyska ayaguna ay baaraan ay beegsadaan bartaa laga soo wacay sidii ayaa dhacday ugu dambeynna bileyskii waxay aqoonsadeen goobta laga soo wacay boolis ayaana loo diray si uu u soo indheeyo oo u soo baaro wax meeshaasi ka jira haddaba waxa dhacday bileyskii markii ay goobtii soo gaadheen waxay arkeen in meesha uu ka dhisan yahay guri oo gurigan sawirkiisa u jeedaan gudihiisa ayaa lagala soo xiriiray haddaba bileyskii ayagoo tartiib u socda ayaa waxay ka soo tegeen gaadhigii si haddii gurigani uu ku jiro dambiile ay si kedisa ugu galaan balse arrinta la yaabka ku noqotay bileyskii ayaa waxay ahayd gurigii markii ay gudaha u galeen waxay ogaadeen gurigani inuu yahayba guri laga haajiray oo aan cidna deganayn oo aanu haba yaraatee ka muuqan wax raad ibni aadam ah yacni guriga gudihiisii markay gaadheen waxay ogaadeen albaabadu inay u muuqdeen kuwa aan in muddo ah laba furin gudahana ay caaro iyo balaayo ku dhaldhalatay oo yacni aan bini aadamo ku noolayn haddaba bileyskii madax wareer ayaa ku dhacay waxays yidhaahdeen gurigani guri la degan yahayba uma muuqdee sidee ku suurta gashay in laga soo waco haddaba bileyskii ayaa waxay gudagaleen baaritaan ay gurigani ku sameynayaan si ay uga sal gaadhaan cidda gurigani deganaan jirtay iyo meesha ay ku dambeeyeen gurigii bay baadhbaadheen waxay ugu tegeen waxyaabo qadiim ah oo beri hore la isticmaalay yacni waxa u muuqday gurigani guri beri hore laga guuray oo in muddahna la soo gelin ugu dambeyn bileyskii waxay ogaadeen gurigani inay deganaan jireen qoys iska caadi ahaa oo aan wax mashaakila lahayn qoysaska kale la mid ahaa qoys runtii aad u deganaa kana koobnaa 3 xubnood waa aabe wiil iyo hooyo bes gurigan intaas ayaa deganayd jaarkii agaarkaasi ka dhawaa markii ay wax ka weydiiyeenna waxay jaarkii ku tilmaameen qoyska gurigana deganaa inay ahaayeen qoys muxtaramiin ahaa aad u wanaagsanaa dad ixtiraam iyo akhlaaq wanaag lagu yaqaanay ahaayeen aana weli hore looga baran wax mashaakil iyo dhibaato ah waa tahay haddaba haddii arrintu sidaasi tahay su'aalo u baahan jawaabo ayaa meesha yaalla haddii qoyskani qoys sidaasi wanaagsanaa ay ahaayeen maxaa ku kalifay inay gurigani ka haajiraan xaggayse waqti xaadirkan ku dambeeyeen sideese ku suurta gashay ambaba se yaa kala soo xiriiray gurigan gudihiisa bileyska haddaba saan soo sheegay qoyskani waxay ka koobnaayeen 3 xubnood aabaha wax lagu magacaabo Travis hooyadana Olivia iyo hal wiil ay labadooda dhaleen oo lagu magacaabo Adam qoyskani ilmaha kaliya dhaleen wuxuu ahaa wiilka yar ee lagu magacaabo Adam
runtii waxaanay u jeclaayeen si aan inaba caadi ahayn, sababtoo ah waxau ahaa wiilka quraatay adduunyada ka eegtaan, ubad kale maanay dhalin, aad ayana runtii u jeclaayeen. haddaba qisadooda iyo dhacdada qoyskani markii dib loo fiiriyay waxaa la ogaaday in maalin maalmaha ka mid ah ay qoyskani waayeen wiilkoodii yaraa ay aadka u jeclaayeen ee Aydam. adigu raadin iyo baadigoob dheer kadib waxay arkeen ay dul tageen meydka wiilkoodii yaraa oo ag yaala meel barkada, yacni sawiro qoys hal wiil oo keliya dhalay, halkaa wiilna aad u jeclaa, aad u ilaalinayay, oo hal mar ay dul tagaan meydkiisii. yacni waa qalbijab aad u weyn. arrintaa xanuunka badanna waxa dareemi kara oo keliya ciddaa dhibaatadaasi qabsatay. runtii aad ayay uga murugoodeen, hase ahaatee waxay go'aansadeen inaanay wiilkaasi yar aanay aasin ilaa ay ka ogaadaan waxa ku dhacay iyo waxa sababay dhimashadiisa. dhakhtar ayay ugu yeedheen, baadhitaan ayaa lagu sameeyey, waxauna dhakhtarkii u sheegay inuu wiilku ku dhintay biyo. yacni lama garanayo biyahaasi misagaa ku dhacay, haddiise uu ku dhacay dee yaa ka soo saaray. yacni lama aqoonsan wiilkani ma isagaa dar ilaahi ugu dhintay barkadda mise waa lagu riday oo dad ayaa ka dambeeyey oo ku dilay deetna markuu dhintay dibadda uga soo saaray. haddaba arrintani xanuun ka badan markii ay qoyskani qabsatay. intaasi wixii ka dambeysay xaaladda qoyskani aad ayay u xumaatay, waxay galeen xaalad aad u xun, qalbijab, murugo. labadooduba shaqooyinkii ay hayeen bay faraha ka qaadeen, guriga ayay ku xaroodeen oo waxay joojiyeen dhaqdhaqaaqii dadka u tegayeen iyo jaarkii. yacni waxay noqdeen dad aamusay oo rajo dhigay oo guriga isku xareeyey aan wax dhaqdhaqaaq lahayn. xaaladaasi murugada ah markay aabahani iyo hooyadan ku sugnaayeen guriga ay ku xareysnaayeen in muddo ah. sida caadada ah dee waxa weeyaan anagu ka muslimiin ahaan qadarta noocaasi oo kale qofka markay qabsato ilaahay ayuu tala saaraa, waa uu samraa, waxaana ilaahay ka baryaan dee inuu ilaahay ugu bedelo wax ka khayr qaba. hase ahaatee qoyskani midaasi cagsigeeda markay in muddo ah sidaasi ay ku sugnaayeen ay u adkaysan kari waayeen, waxay labadooduba go'aan ku gaadheen inay kala tagaan, ay ismacasalaameeyaan. haddaba intaasi wixii ka dambeysay qoyskii markii ay kala tegeen waxay labadooduba go'aan ku gaadheen inuu mid waliba si gaara noloshiisa u dabaro, xaggan mid ka baxo midna xaggan ka baxo, sidaas u kala tagaan, guriganna ay sidiisaasi ay ku daayaan ay isaga tagaan. khalaas noloshii waa iska dhiibeen. maalintaasi wixii ka dambeysay gurigii albaabada ayaa u xidheen, mid walbana suuqiisa ayuu galay. haddaba kala tagoodii kadib sanad markuu ahaa 1991kii dadkii jaarka ahaa ee gurigaasi kaag dhawaa waxay arkeen runtii dhacdo aad uga yaabisay. kala tagoodii kadib muddo kadib waxaa la arkay hooyadii wiilkii yaraa ee Olivia oo gurigii ku soo laabatay, hase ahaatee guriga maana gelayn, guriga unbay ku wareegaysanaysay. way timaadaa guriga ma gasho, way ku wareegataa sidii kacbadoo kale, waa isaga tagtaa. in muddo ayay sidaasi ku waday. jaarkiina markay caadadani in muddo ku arkeen waxay la noqotay la yaab, yacni qoftan guriga ma galayso, waa imanaysaa, in muddo bay ku wareegaysanaysaa, deetana waa isaga tagaysaa. in muddo markii sidaasi ku waday jaarkii waxay yiraahdeen khalaas gabadhii waa isku dhufatay, yacni tani ma jirto, way isla hadashay, sidani xal ma aha. haddaba dhacdadani ah in bilayska gurigani gudihiisa lagala soo xidhiidho ayaa waxay dhacday sanadku markuu ahaa 1994kii. dhimashada wiilkani yarena waxay dhacday sanadku markuu ahaa 1990kii. markii ugu dambeysay ee la arkay hooyada wiilkani oo guriga ku wareegaysanaysana waxay ahayd 1991kii. ugu dambeynna xaaladaasi waa lagu daawan kari waayey. markii la arkay iyadoo ku wareegaysanaysa waa la qabtay, waxaana la geeyey goobaha lagu dabiibo dadka dhimirka wax ka qaba. waa tahay haddaba arrinta isweydiinta mudan ayaa waxay tahay mar haddii ay gurigani ka haajireen 4 sano ka hor 1994kii yaa gurigan gudihiisa kala soo xidhiidhay. saan soo sheegay ciidamadii markii gurigii soo abaareen ay yimaadeen waxay ugu tageen gurigani oo u muuqda inuu yahay guri laga haajiray, yacni guri gudihiisu wada boodh ah, caarubalaayo ku dhashay oo iska caddahay dee in muddo aan la furinba gudihiisa. gudaha guriga iyo dibaddiisa ayaa waxay ku sameeyeen baadhitaan. arrinta aadka uga yaabisay bilayska ayaa waxay ahayd waxay arkeen guriga alaabihii dhex yaalay ayagoo sidooda u dhex yaal. uma muuqda guri laga guuray oo alaabihii iyo xamaantii lagala baxay. gurigu waa sidiisa, alaabihii meeshooda ayay yaalaan, furaashkii, sariirtii, wax walba way nidaamsan yihiin, sidooda ayay yihiin. xataa dharkii ay xidhanayeen sidoodii ayay u yaalaan. oo waxaabad moodaa gurigan dadkii deganaa inay sidaasi uga dhex baxeen ayagoona waxbaba ka qaadan, ayagoo xataa aan dharkii ka qaadan inay gurigii sidaasi ay isaga baxeen ayaa muuqatay. haddaba bilayskii oo sidaasi baadhitaan u sameynaya ayaa waxay fureen mid ka mid a qolalkii guriga
gurigaasi ku yaalay oo asagu ka dugan qolalkan kale. guriga intiisa kale waxaa ka muuqatay lama degaan iyo in muddo la soo galin guriga gudihiisa. hase ahaatee qolkani gudihiisa waxaa muuqatay in la deganaa, waa tartiibsan yahay qolkani, waa nadiif, yacni waxaa muuqatay qolkani in lagu dhex jiray. haddaba bileyskii markii ay qolkani gudihiisa u soo galeen waxay la kulmeen arrin runtii anfariir ku riday. waxay ugu tegeen hooyadii wiilkii yaraa oo kursi ku fadhida oo sii jeeda. yaa markay bileyskii isku dayeen inay la hadlaan ay yara taabtaan waxaabay ugu tegeen gabadhii oo meyd ah, hooyadii wiilkii yaraa oo kursiga ku fadhida, hase ahaatee meyd ah ayay ugu tegeen meeshii, isla mar ahaantana gacanta ku haysata buube amba boombale ay ka samaysay geedo. sidoo kale waxay ugu tegeen ay arkeen sawirro farshaxan ah oo wiilkeedii yaraa ah oo aad u tiro badan iyo shumacyo aad u tiro badan ay u shishiday, iyo welibana sawiradaasi ay dul dhigdhigtay ubaxyo aad u tiro badan. haddaba meydka hooyadii markii la baadhay waxaa la ogaaday in muddo ku dhowaad 1 bil ah ay meyd ahayd. haddaba arrinta kale bileyskii madax wareerka ku riday ayaa waxay ahayd, waxay arkeen warqad fariin ah oo qoran oo miiska saaran. warqadii markay akhriyeen taariikhda ku qornayd waxay ahayd 27 bisha February sanadka 1994 waana isla maalinta lala soo xidhiidhay bileyska ay goobta soo gaadheen. haddaba arrinta isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, warqadan yaa qoray? taariikhda la qoray waa taariikhdani ay bileysku goobta yimaadeen. haddii la yidhaahdo hooyadani ayaa qortayna hooyadani waxa ayba meyd tahay uu meydkeedu gurigani dhex yaalaa ku dhowaad bil, yacni ku dhowaad bil ka hor ayay dhimatay. warqadanna waxa la qoray maanta oo kale. sidee marka arrintani ku dhacday? haddaba fariintani meesha ku qornayd ayaa waxay ku socotay wiilkii yaraa ee ahaydam ay dhashay hooyadani. wiilkan yar ayaa ay kula hadlaysay, ay u sheegaysay kalkacaylka ay u qabto inta uu leegyahay, isla mar ahaantaana ay ayadna sidoo kale go'aansatay inay dunida ka haajirto, ayadoo isla mar ahaantaana ku leh waan ka xumahay wiilkaygii aan jeclaayo inay dhacdadani dhacdo, balse waxaan kuu sheegayaa inaan aniguna go'aansaday inaan dunidan isaga tago si aanu ii dhibaataynin bahalkaasi xunay ku dhibaateeyey. arrintani oo maskaxda bileyska ku abuurtay su'aalo aad u tiro badan, waxaana isweydiiyeen bileysku sidee arrintani ku dhacday, yaa qoray warqadan, waxaana ay ka hadlaysaa ise muxuu yahay. intii ay bileysku qolkaasi yar ay ku guda jireen waxay dareemayeen shucuuro iyo waxyaabo aad u la yaab badan, waxayna dareemayeen in gurigan uu wax kula jiro. yacni haddaba mid ka mid ah bileyskii maalintaasi goobta soo gaadhay ayaa runtii arrinta aad uga fikiray, waxauna ninkani ka mid ahaa dadka aaminsanaa ruuxaamaha iyo waxyaaba noocaasi oo kale. deetana waxau yidhi waxaa laga yaabaa inay hooyadan adeegsatay arwaax iyo jiman iyo wax noocaasi oo kale, kuwaasi oo taleefanka bileys ka wacay. asagu sidaasi ayuu yidhi, yacni arrintu sidaasi ayay u eg tahay, sababtoo ah gurigii markay baaritaan ku sameeyeen wax raad ah oo muujinaya in maalintaasi taleefankii guriga yaalay la isticmaalay oo lagala soo xidhiidhay calaamado muujinaya maanay arag wax fara ah iyo wax raadad kala haba yaraatay kumaanay arag. haddaba arrintii sidii ayay ku daboolnayd oo wax jawaab ah oo muujinaya dhacdadana sida u dhacday waa la waayey. waqtigu waxa iskuraba sanado badan kadib 2005 waxa dhacday mulkiilihii gurigani asal ahaan iska lahaa inuu go'aansado inuu gurigani iibiyo. hase ahaatee akhbaarta gurigan waa la hayaa, cid ku dhiiranaysa oo gurigaasi iibsanaysa amaba se gadanaysa waa u waayay ninkii. qof waliba uu iibka gurigani usoo bandhigo waxa uu yidhaahdaa mayay allahay ka allah gurigan xaalkiisa waan ogahay, lagama yaabo inaan foodeyda geliyo, sababtoo ah dhacdada gurigani caanayay noqotay waan la wada yaqaanay. qof ku soo hagaaga oo gurigani gatana waa u waayay ninkii, balse ninkani gurigani iskale waxauu doonayaa inuu gurigani iibiyo oo uu lacag helo, dadkiina kuma soo hagaagayaan. intaas kadib ninkii gurigani iska lahaa waxauu go'aan ku gaadhay inuu raadiyo dadka arrimaha jinka iyo ruuxaamaha iyo waxyaabaha noocaasi shaqada ku leh si gurigani looga saaro waxyaabahani gurigani inay ku lagu tilmaamayo. waxa uu tagay nin arrimahaasi caan ku ahaa, waxa uu yidhi intaasi ka badan anigu ma xamili karayo, gurigaygani in muddo ah dadka way ka yaacayaan, cid iibsanaysa ma jirto, waxaa la leeyahay gurigani ruuxaamo iyo jiman iyo waxbaa degan, niyon kaalay oo bar gurigani iiga saar, waxaana gurigani gudihiisa lagu sheegayo. aniga lacag bay martay, waxaan doonayaa inaan gurigani iibiyo, dadkii iibsan lahaana waa ay ka yaacayaan oo cidna kuma soo dhiiranayso. ninkii uu tagay ayaa waxa ku yidhi arrintaas aniga imika soo xalinaya, waxa meeshaasi gudaheeda lagu sheegayo aniga imika ka soo kaxaynaya oo ka soo dareerinaya, ha u bixin. ninkii oo kalsooni isku qaba ayaa gurigii soo galay, albaabkii uu furay, dalaq ayuu yidhi. hase ahaatee ninkii markii uu guriga gudihiisa galay waxa uu leeyahay mar alla markaan gudaha gurigii sidaasi u galay waxa aan dareemay diiqad, culays, cidhiidhi iyo in gurigani ay ku jiraan wax awood leh. heer uu cidhiidhigii uu gudaha gurigaasi uu ku dareemay uu gaadhsiiyey inuu ku dhowaado inuu ku dhaco wadna istaag, taasi oo sababtay inuu ninkii meeshii isaga cararo ka baxsado. ilaa waqti xaadirkanna xaaladii gurigii meel ay ku dambaysay ilaahay ayaa og. ugu dambayn muuqaalkeenna maantana halkaasi ayuu ku egyahay, bal dhacdadani iyo sida idinla tahay xagga hoose commentiga nagula wadaaga. muuqaalkana sidoo kale ha ka hilmaamin inay isugu dartaan like, share
subscribe 400 kun inaynu gaadhno waxaa nooga dhiman 6 baan malaynaya 6,000 meelahaas hadal iyo dhammaan aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada muuqaalkan kal iyo laabaan idinku mahadcelinaya thank you so much shukran bikhase merci assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku xidhnow janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir